qodob baynu dul istaagayna mikrofonkana hayga fogaanina way maxaa ka jira horta in xilligii faadimiinta mawlidkan la bilaabay calayhi salaatu wassalaam dowladda faadimiinta mawlidka aasaastay waxaan sheegnay horta Maalik Mudafar way kastoo ka jawaabteen balse waxaan sheegaynaa lacalla haddii xataa faadimiinta aynu u raacnay inay sameeyeen shayga wanaaga haddiiba cid lagu arko oo ma looga tegi karaya cidda xumaanta ay samaysa darteed nabigu madiina wuxuu imaadiyay oo yahuudi muxuu ahaa xusayaan maalinkii cashuura muxuu yidhi anaga idinkaga xaq mudan faadimiinta xataa haddii maanta sameeyeen oo lala iyagaa sameeyey oo taariikh ahaan lagu cadaynayaba waxaan leenahay iyaga oo sameeyey baa haddana anagu aan uga mudan oo uga horeyna siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cashuura uu yidhi yahuuda idinkan anaga idinka mudan nebi muuse marka taas horta daliil ma noqonayso faadimiinta sameeyay mawlidka oo raafida waxaanu imanaynaa kitaabka imaam shaafici sida laga soo guuriyay oo uu ka soo guurinayay Bayhaqi iyo ibn Asakir kitaabkiisa taariikhu Dimashq iyo manaaqibka Shaafici oo qoray Bayhaqi marka waxa weeye jiska labaad safxadda 700 iyo ibn Asakir kitaabkiisa taariikhu Dimashq majalada 11 safxadda 317 gabi ka soo guurinayay imaam Shaafici waa mid aad u jecel hulbeedka rasuulka dibadda waxa lagu tuumeeyay saayna leeyahay raafida iyo shayca iyo hawlahaas aad ku jirtaan ay yiraahdeen maadaama hulbeedka nabiga jecel yahay Shaafici raafidada jecel waa raafidi Shaafici marka suu yiraahday uu jawaabay dadkii haddaan raafida ku noqonayay buu yiraahday xubbi ali maxamed jacaylka aalka nabi maxamed hakan marxaati noqdaan jinka iyo isuguba inaan ahay raafidi labada meelood baan ku soo guuray ma aragtaa waa su'aasha labaad ee dhinaca ikhwaanku soo weydiiyeen waxa kamid ah sifaadka ilaahay goonida leeyahay ayaad muxuu ahaa ayaad la wadaajisaan ilaahay iyo nabiga wax wadaajisaan taas waa wixii shaacir ay ka digayeen yad in la yiraahdo saas ayay horta meesha ku dhex jirtay balse sifaadka ilaahay aanu dhex jooga waliba sheekh Nucmaan baan doonayay inuu mikrofonkana qaato nabi maxamed ilaahay quraanka wuxuu noo sheegay inuu ra'uuf iyo raxiim yahay soo quraanka suurad tooba ku taala laakiin taas maxallu nizaaciba ka baxsantay in yar marka dambida wax walba waxa taalimka quraanka inuu malakul mawdku noofsanayo marka waxa taalim inuu ilaahay noofsanayo waxa quraanka taala inuu ilaahay arlada iyo samada uu nuur keegaya hadana waxa taala inay maxad iyo quraanka iyo jibriil iyo marka qaar nuur lagu sheegayo waxa taala inuu ilaahay khaas wax nooleysay ilaahay khaas wax dilo hadana idan loo siinayo ciise inuu wax dilo waxna nooleysay waxyaabo ilaahay gooni leeyahay marka waxa isweydiin mudan sifaadka ilaahay ma waxa weeye xaqiiqa looga jeeda oo waxay uga jeedeen ilaahay baa xaqiiqo dambi dhaafa ma ilaahay baa nebi maxamed xaqiiqo dambi dhaafay suufiyadu ka jeedaan mise waxay ka jeedaan idan ilaahay u siiyo oo awood loo karsiiyay weeyaan su'aal kale inoo soo weydiiyeen waxa ku jirtay nebi maxamed hargeyso imanaya barbaro imanaya meesha lagu xuso taa jawaab waafiyan ka siinaya nebi maxamed habeenkii la dheelmiyay arwaaxdii nebiyadii ka horeeyay oo dhan qudus bay joogeen waa ki halka ku tujinayay axaadiistuna ku sugan tahay haddii ay diidayaan iyaga inoo sheegayaan in laga soo qofku markuu dhintay kadib arwaaxiisa lagu arki karo koonka korkeega ama samaawaadka lagu arki karo meeluu diinta ma ku sugan tahay mise maya haddaad maya leedihiin inta xadiisan halkan inoogu qoran baynu akhriyi halka lagu sheegay masaadirtooda inuu sheegi dabeetna markaas inuu ahaa marka nabigu soo gaari karaya agagaarka hargeysiyo haddiiba nebiyadii ka horeeyay in yar haynu isdhegeysanno markay waqtigeygii maraysaa haddiiba nebi maxamed calayhi salaam ambiyadii ka horeysay koonka korkiisa lagu arkay iyagoo ka intiqaalay oo ka rexlooday maxaa nebi maxamed u diidaya ma nebi maxamed iyagaa ka fadli badnaa hadday saa tahay haye ma nebi maxamed awoodda ilaahay ma siin karayo haye bal waxaad ku diidaysa idinkaa keeni doona ta kale marka xagga waxaa ka muuqata wax majaas la yidhaa iyo wax xaqiiqay la yidhaa inay jirto ilaahay baa xaqiiqa nafta qaada ilaahay baa wax nooleysiiya ilaahay baa dembi dhaafa ya waa inta waa xaqiiqo majaasna nebi baa soo nooleysi karaya idan la siiyey weliba waxaan qaban kara nebi maxamed baa kan samayn kara nebi maxamed baa ra'uuf iyo raxiim noqonaya waa in majaasi xaqiiqa la kala barto haddii la diiday majaasi xaqiiqana quraanka hadda 100 meelood ku sugan tahay in yar han dhameysana su'aalaha soo weydiiseen su'aalaha waxa ku jirtay inaad maalinka mawlidka xoolo qashaan xoolaha in la qalo oo waliba cid lagu xuso oo sadaqo loo bixiyo diinta ma ku sugan tahay hadda hadeer website-ka ibn Baas dhex gashaan waxa taala in xadiiska uu nabi maxamed calayhi salaam khadiija ku siyaaran jiray xoolaha ugu qali jiray ee xadiiska garabka xoolaha ka haray inuu muttafiq yahay darajadiisa hadeer baara waa xigta muxuu ahaa ikhtilaadka dhex galaya rag iyo dumarka hargeysa markaynu joogno
13 mawlid baa lagu qabtay Hargeysa 2010 baa la bilaabay hal mawlid xafladda mawlidka Mansoor laguma wada qaban rag iyo dumar ma jirto ururadan qolyaha naga soo horjeeda marka la imaado Ansaar Sunna oo kale Mansoor rag iyo dumar koona hala kala fadhiyo laakiin hal hool baa lagu qabanay mawlidkana wali mawlidka ma dhicin in hal hool lagu qabto muxuu ahaa munaasabada muxuu ahaa xuska mawlidka berberaan tago Sheekh Xasan lagu tagay anoo Sheekh Usmaan siyaaranay hal gabadh wallahi anoo indhaha ka saaran 3 cisho joogay ayaan ka soo noqday halkii ku taaleeyada iyaga inoo sheegaya qaadkan yeelay isaguna maalinka mawlidka qaad baa la cunaa baa tiraadeen oo dhaleecan noqonaysa mawlidka nabiga caalamul islaami Indonesia laga xusaa Malaysia laga xusaa Masar baa laga xusaa Turki baa laga xusaa dhulalkaas oo dhan qaadku ma gaadho haddaad leedahay Soomaalida caado u qaadka cunta waa mabda gaadhoon kaga jawaabi oo dood loo iclaansanay qaadka haddii la leeyahay mawlidka xumaantiisa waxa kamid ah qaadka la cuno sheekh waxaan ka rabnaa jaamicul ashar iyo Suuriya iyo Dimashq caasimadeeda tahay Ciraaq Baghdad lagu dhigay iyo Yaman walow qaadka iyada laga cuno balse waxaan ka hadlaynaa wadamada qaadka laga cunin daruq suufiya iyo dadka mawlidka taabacsan ay joogaan qaadka lagu cuno xagu yaalahay keenaa haddayna jirin mawlidka dhaleecan noqon mayso way mawlidku dhaleecan uga dhigay su'aal baa jirtay Nucmaan weyna weydiinayay oo ahayd salafka ayaa waxay soo guuriyeen cajaladana dib loo dhageysto salafka waxay soo guuriyeen in faadimiintu ay sameeyeen xuska mawlidka horta salafku halku ka bilaabmaa halkuusa ku dhamaada taariikh ahaan haddaan ku raaco culimaduna waxa ooli jirta cajaladana dib loo dhageysto waxay taali jirtay nabigu ma sameeyay asxaabtina ma sameeyay nabigu muu sameeyay mawlidka laga hadlaya nabigu muu sameeyay khulafadii ma sameeyay asxaabtii ma sameeyay salafkii ma sameeyay taabiciintii iyo taabiciintii dhamaan salafkiintii la isku oranay ma sameeyay dawladii faadimiinta sameeyay oo culimada waaweyn oo umaliga kamid yihiin jaanibkiina ay sheegeen su'aashu waxay tahay salafka uu sheegay sheekhu uu leeyahay faadimiinta waayo taa raba nabi maxamed hal meel oo yaa maxamed lagu raahday yaa bal hala sheeg mar walba yaa rasuul iyo yaa nabi yaa ayuha nabi yaa ayuha rasuul ayaa quraankii taala marka qasaayid waxa ku amaanay marka Xasan min Thabit darajada wuxuu ku gaaray waa amaanta nabi maxamed in bilaa caleek waxa ku dhow Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu meel aan ku mutaysan inuu mumbarka koro oo waliba amar nabi ku koro ayuu Xasan ayuu ku koray muusiga walow aan taa ku soo wada waxa jirta wada waa mas'ala khilaafiya bamiisu waxaan oran karnaa wax xaraan inaga culimada xarimisa raacin waxaan oran karnaa wax xalaal baan inuu ayiidaya shakhsiyan walow haba yaraadaan adillada ay haysataa disala leey laakiin waa mas'ala khilaafi wax ay qaadiriyana gaar ugu suntan tahay maaha wax ashaacira ku suntan tahayna maaha waa wax madhaba oo mas'ala muxuu ahaa waxa weeye fiqh khusaysa diintuna waa saddexdaas shay mid walba gaarkayga ayuu nabi maxamed bayna ka suganta cilmi laga soo saaray maqaam al-ihsaan tasawuf laga soo saaray fiqiga wax laga soo saaray madaahib ahlu sunnah marka la joogo afar aqeedadana waa halkan ragan ku kala duwan oo ama de maxamed bin abdaba ay ictimaadaan ama inuu taymiyaha ictimaadaan laakiin anaga ciidan ictimaadayna waa sheegnay waana ka rur sheegayna ibn xasan abi xasan al-ash'ari baan taabacsannahay mawlidkana su'aalahan idinka weydiinay salafka isku gay qabasiya 300 joogay yiraahdii faadimiinta sameeyay hada waa salafka cajaladana way duuban tahay iyo muxuu ahaa salafkii ma sameeyay oo waqtigu ma yaqaan wax mawlid la yiraahdo waxa isku gay qabasiya labadaba ay ku suganta Allahumma salli ala Muhammad ta amaanta nabiga ana dul taagan oo ka dhaqaaqaynin waxa raba waxa weeyaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabi Muhammad amaantiisa maadaama ay sugan tahay waa in la wada sameeyo wali ma aanu arag jaanibkan kale madaxay nabiga ku amaaneen reer Madiina nabiga amaanay Sayyid Xajar al-Asqalani soo guurinayo nabi Muhammad shucara gabayaa gaarab la Kacb ibn Suhayl baan tuscaad inta laagtay iyagu waday garanayaan way noo sheegi hadday dafirayaan way noo sheegi saxiixul muslim bay ku taalaay miyaynu ka jarnaa quraankay ku taala ilaahay muxuu dhaaday markuu shucaradii dhaleeceeyay kuwa ilaahay rumeeyay caal fiican sameeyay una gargaarka maxaa tafaasiirtu ay muxuu ahaa ku sheegeen waxay ku sheegeen waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad inuu yahay madxigii lagu gargaariyay diinta oo inuu marka qaar nabiga oranayay waa kuwa soocay u jawaab oo kor minbarka asxaab muxuu ragii taabacsanaa qasaayidka inagoo wali dul taagan hadday abyaad diidayaan ay kamid tahay buusiiri idinku jaanibkiina bal hal nin oo nabi maxamed shacir ku amaano la wada yaqaano buusiiri ummadoo dhan buu kaga socnaay inoo keeno bilaa calaak hadaa diideena nagala dooda waxa buusiiri imaam buusiiri burdihiisa iyo hamsadiisa iyo qasaayidkiisa ku taala wuxuu yiraahday way noqon weyday shariicadii ilaahay seen ugu amal falay waa intiina gudbin su'aasha aan weydiinayno waxaan u baahanahay abyaadii ay keeneen waxa weeyaan abyaadii in aynu tafsiirno
idinka oo sidaad ka aaminsantahay bal u tafsiiraya barow walaal waxaan ku weydiinayaa barnaamijka haddana waxaan u qabanay mawliidka soo xuska mawliidka haddaaban masalan wayna dhacdaa rag baa fuqaha oo wax diidaya ayaaba sameeyey mawliidka in ama xoolo u qalaan ama inta isku yimaadaan siirada nebiga ka wada sheekeeyaan marka wax lagu dhaleecayn karqaad iyo qasaa'id ereyaas ka mid rag baban buuseeri aan kaba qaadin muxuu ahaa maxfaladay sameeyaan marka imaam buuseeri masaa'ilku ka hadlay hadday istiqaaso tahay hadday tawasul tahay hadday weynaynta iyo tacdiimintu gaarsiinaya akram alkhalqi iyo abyaadaas ay ka mid tahay hadday aqsamtu bilqamari ay ka mid tahay dhammaantood adilay leeyihi ya kutub 4 majalad iyo 6 majalad oo ka badan maktabadu saxaaba hadda riyaala ayaa soo helaysaan waxaad helaysaan culimadii diinta ee inaga horeysay waxaan nooga cilmiga badnayd waxyaaba ay qabteen mid baa jirta ay lahaayeen bidcada halka bidcada markaynu joogno bidca maxaa la yiraahdaa waxay u kala saareen luqad iyo muxuu istilaax luqatan iyo istilaaxan sooma haddaynu idin raacna tiina kullu bidca markaad lahaydeen ma hadalka waxaa jira wax cumuum loo idhaahdo si guud iraadadan laga jeedo qayb ka mid a balaaqada luqadda carabiga ku suganta in shay korka laga wada xuso iyadoo qayb ka mida la sheegayo qur-aanka waxaa taala ka dhowrsada nafiyina suuratulbaqara weeyaan ya ka dhowrsada nafihina naar xaabada laga shada ay tahay dhagaxaan iyo dad marka la idhaahdo yaa ka mid a dadkii awliyaa ka mid a ambiyaa ka mid a ehlullah iyo saalixiin kalaa ka mid a kuwaas may ku jiraan waa maya maxaa laga jeedaa qayb ka mid a haddaan qayb markaa maxaa la xusay magac guud oo cid walba ku sugantahay oo nebiye ka mid yahay laakiin cid gaara laga jeedo mushrikiinta iyo kufaarta laga jeeda ciddii mutaysatay in la cadaaba ayaa laga jeeda maxaa kaloo qur-aanka sugan meelo kale oo ciida ka badan oo wax korka laga sheegay axaadiisteena taalaa xadiiska kulli bidca ka mid a su-aal ayaa meesha ii taala axaadiistu kutub bay ku qoray hadday tahay saxiixulbukhaari iyo saxiixulmuslim iyo dhammaan saasay ku qoray waqtigii saxaabada ma jirta in axaadiis la diwaan geliyo hadday arrintan halkaa ka dhaqaaqima raba inay nooga jawaabaan culimadeenu axaadiista in la diwaan geliyo oo la qoro oo darajaad loo sameeyo diinta may ku taalaa oo mutawaatir iyo axaad iyo saxiix bukhaari iyo daciif xataa in la qoro oo la qoro diinta may ku taalaa waayahay waayahay masalada quridan kaga jawaabo axaadiis mar la qori karaa ma qorno xilliga nebiga horta waa masale macruufa kitaabka fawaid alxadiis buu ka hadla mubarak furi muqadama biliga ka hadla weliba waa la qori karaa xilligii saxaabadana waa la qori jiray cabdillahi bin camr caas baa ka mid ah abu hore wuxuu leeyahay xadiiska si uu qori jirna ma qori jirin quraan meesha yala soo hadii in la diwaan geliyo kitaab laga dhigo la ilaa horta qoritaan baa weydiisay haye halka lama gurguro mooti diwaan gelin ma ku weydiiyay xadiiska way sugnayd saxaaba loo qoro baa jirtay xadiiska taasina waa ku dalil in qaabkan loo soo jamciyo miya ها إن قاب كان متواتر يا حاد ضعيف صحيح qoritaanka asal baa mooti qaab damaad xadiiska saxiix taas waa saxiix ku xiranta qoritaanka ma qosto mooti in qaabkan loo soo jamciyo diwaan gelinta maslaxa keensanaysa waa sidii masaladii hore quraanka kale oo quraanka xilliga nabiga maalic baa diiday laakiin markii dambe muqtada keensaa yimi maxaa yimi rag quraada ayaa dagaal galay ku madhay waxa laga baqay quraanka in la waayay oo lama waragii dadkii yaqaan dhintaan marka sabab darteed baa axaadiista loo diwaan geliyo masaalix mursal ku jirta sax xilliga nabiga ma qori jiray wala qori jiray xilliga waxa jawaabta igu koobtay oo si sax ah waxa weeyaan in baahi keentay darteed loo qoray axaadiista kayfiyada kale loo sugo kayfiya mooti oo lagu ilaalinayo in lagu ilaaliyo asalka soo xilliga nabiga loo sugnay in lagu ilaaliyo Soomaa laakiin asalku asal bay leedahay way sugnayd cabdilla abu hore diinta asal bay ku leedahay su'aasha waxay tahay daba inta doonayay waan taaganahay qoritaankii tadwiinka uu kala wada isku mid unte wuxuu qoritaan unte sax dhigayso yani waxa weeyaan marka wal qori jiro da asal bay leedahay waxa yimi markan baahidu ay keensatay axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay yani waxa weeyaan dayacanto cid walba wax isaga soo darto quraanka oo kale hay qof walba inuu iska yiraahdo nabiga yiri maxaa lagu garanayaa waa in la diwaan geliyo in la diwaan geliyo la takhriijiyo la daba galo lawla isnaad godaanu jiri lahayn yani waxa weeyaan anigu hadda wax doon soo raala jawaabtu waan helay aan sii wad hadalka jawaabteedu weydiiyay waan helay hadalkaygan ku socdo waxa jirtay waxayna yiraahdeen maslaxad darteed saanay maalinka ayna waxaas cilmiga dhan u baabeen oo nabiga lagu been abuuran darteed baa loo qoray sooma
nebi maxamed waagiisii siiradiisana waa la akhriyey oo asxaabta inta isku yimaadeen waa kii de nebigu laha maxaad iskugu timaadeen nebi maxamed kaa sheekeysana ma wallaahi ba waa xadiis ku yaala sidoo kale nebi maxamed salligiisa ya dee jibriil baa ii sheegay inuu ilahay malaa'igta ugu faanayey in asxaabtaada isku halkaas su'aalka weydiiyey saxaabadaas ma nabiga iyo xusayeen mawliid bay wadeen qaabka ninka wadaan mawliid ma waan wadaa bas dikrigi bay wadeen dikriga hadii la wado buyutulaad la kala may waan kuu soo wadaa walaal de walaal waan kuu soo wadaa mis dhegeysana wajhi istilaalka doonay fahmo waan rabaa okay waxay raggaas maalin gooniya may ahayn taariikhdeedina lamaba hayo laakiin waa laynoo soo guuriyey xadiiska maxaa halkaa ku banaan horta in la isku iman karayo waa talabaad maxaa la akhriyaa mawliidka siiro iyo ammaan oo soo sheegnay adiladeeda iyo howlaha soo iyo muxuu ahaa in sake la bixiyo iyo waxa dhammaan in maalin lagu jamciyo ama maalin walba horta in la isku imaado malada ragga way naga jebladeeyihiin iyagaa sameey maalin walba holka imaadaan maslaxad darteed ayaa mawliidka maalinka ama mansoor lagu qabta ama caalamul islaam meel kale lagu qabtay maadaama la isku iman karayn maalin walba ayaa maalin loo cayimay in arinta weyn ee ajarka ilaahay naga siinayo ee la rajaynayo in la sameeyo waxa rabaa oo kale waqtigayga horta socday barowe waxa jirta mid baa jirta halkaas su'aal ka weydiinay maxamed 12 rabiicul awwal bishan ma saxiix ma tahay oo maalintii saxda ahayd ma tahay in maalintii dhalashada nabi maxamed ay ku beegan tahay waxyaabaha maalinkaas oo kale mawliidka ku xeeran taariikh ahaan hadda taariikhda cashuur ay ku beegnayd yuhuudun baa laga maqlay soo yaa xaqiijin karaya hadday jaanibkeena kala xaqiijinayaan ha qortaan su-aasha hana inooga jawaabaan maadaama waqtiga haddeer socdo halkaas su'aal kale weydiiyo waxaad maslaxa keentay nabiga in maalin gaaraad la sugi maadaama maalin kale soo karaan maalin cadiida xilli nabi maxay maslaxada imika maalin cadiida maxay waqtiga nabiga asxaabtiba gebigoogba firaaqi u haystee oo dad xabada haddeer inagu haysano markaas saxaabada mawlid berigan baa leedahay maxabadayna asxaabta nebigu ay hayeen ee maalin walba isku yimanay aduma haysa maanta jacaylkay u hayeen nebi maxamed calayhi salatu wasalaam jacaylkii mawlidku kala laba buu de taasa sababaysay walaa haka jawaabo mawlidku kala laba kaga jawaabo digriin la sameeyo diidayo nabiga la jeclaa ma diidayo laakiin mawlid baan ka hadlaya mawlid maslaxa keentay maalin gaar la dhiso maslaxada keentay qaabkay tahay weydii taale tay weydii maslaxada keentay qaabkay tahay weydii ها مصلحة مركز تري مصلحة واحد تاني كل شيء سؤال شيء أنتي نوجد جوابه يعني سؤال شيء أنا نودي نص وبيورو جوابه هاي سؤال شغل اللي قبل محمود هاي محبة يا مولد كوين لك صاروا ها إلا كرسارو كنت محبة يا سلي جمدي علماء ضيدا ما نعسب دون مركز تروح لي قاسي مشايخ ضاي وإحنا دلله كنت ندبل هيستين سؤالها مركز إيوه ديسان النسوس هاي جوابتين فانا بهني جوابتين فانا وكوجو نقطة هذا الكلام هاي ما نعيشك مصلحة كانتي وقت كان ديسان كل شيء asxaabta nabi maxamed calayhi salaam horta deegaankii uu wada joogan waxna inaga maxabad badnaayeen maalin walba xuskiisa iyagu way ku guda jireen way dhigayeen laakiin intay sameynayeen khayr iyo acmaal iyo fadl ay lahaayeen waxna gaari karayna maaha haddaynu tahay isla qirno darteed waxaan leenahay maadaama intaasoo acmaal wanaagsan oo ay ka mid tahay amaanta iyo siirada iyo sadaqada iyo howlahaas aynu maalinka aynu